inaan iyo inaan baa xidhiidh ka dhaxeeyay inankii inantii xidhiidhku ka dhaxeeyay arrintoodii way weynaatay muddo badan way wada farxayeen muddo badan jacaylkii bay wada daadihinayeen muddo kadib inantii baa xanuunsatay inantii markay xanuunsatay waxa loo qaaday imaaraadka carabta inantii xanuun xun baa ku dhacay dhakhtar baa la geeyey dhakhtarkii bay inantu jiiftay muddo badan intay inantu jiiftay dhakhtarka inanku habeen caadi umuu seexan maalinna caadi wax umuu cunin intaa bal wuxuu sugayey wuu soo kaca wuu la hadlaa faamiligooda inantii ka warrama ma ladan tahay inantii maxaa loo baahan yahay bal ka warrama nasiib xumase inantii way geeriyootay muddo kadib inantii way geeriyootay murug taa tii calaacal wax walba inankii bila soo gudboonaadeen qof ka tagayna waad garanaysaan markaan weyno qof inaga mida oo agteena nagu qaali ahaa jawiga aanu galno waxaanu galnaa jawi aad u xanuun badan runtii markaa inankii jawigii uu ku jiray baan maansadan ka sameeyey maansadu way gaaban tahay maadaama uu yahay qofku qof dhibaataysan maadaama uu yahay inan tacsi iyo wax ku timi waxanba soo qaatay intii murugta lahayd bal xaaladiisii buu inanta uga warbixinaya marka inantii buu uga sheekaynaya sida uu xaalku noqday markii ay geeriyootay isagoo una rajeynayay in ilaahay janno farduusa ka waraabiyo oo ay jannadii wada degaan nabdiga ruuxii asteeyey naruurada igu habaay noloshaad ka hayaantay baa aniga nabar igu ahoo nitaaqiya kelinimaan ku noolahay dunida maanta nalkii dunidaad ahayd naftayda adaa lahaa dabiibaa naawilaay ku waayey nabad ahaw shumac iyo iftiin nolosheeda u baxayay ayaad ahayd si haddii aan ku waayey nabad ahaw niyadda adigaa ku nool xusuustaadaan ba'ayn nooluhu boos ka hadlahayd naftayda u buuxin waa inantii buu la hadlayaa uu lahaa waxaan ahaa ruux adiga kuu nool oo dartaa u nool markaad geeriyootay booskaaga cid ii buuxisa nolosha waan ka waayay iftiin nuur loo damaay iilkaad ku nagaatay baa nafsadda holcinaayo oo nuxuus ku tallaalay maanka nalkii dunidaad ahayd naftayda adaa lahaa dabiibaa naawilaay ku waayey nabad ahaw naxliga iyo dhibtaan qabo noloshaydiyey kollay kama warhayside naar afuufayaashiyo nacabkii idhibi jiray waanu nugu lahee nase oo nimcada maal yacni wuxuu yidhi dhibaatooyinkii iyo dadkii cadowgeenna ahaa dhammaan wixiiba waanu nugu lahay naxliga iyo dhibtaan qabo noloshaydiyey kollay kama warhayside adigu dee dunidan waad ka tagtay adduunyada naar afuufayaashiyo nacabkii idhibi jiray waanu nugu lahee nase oo nimcada maal ku dekay naciimiyo naxariista mawlaha ilaahay buu markaa wuxuu ugu rajaynayaa inay naxariistii hanato ilaahay oo ay jannada gasho maadaama ay adduunyada dhibteedii ka tagtay xanuunkii iyo wax walbana inantu inankan dhambaalkan ay u soo dirtay waxyaabo badan bay uga warramaysaa waxay uga warramaysaa inay aakhiro ay badbaaday naxariistii eebba hanatay janno ku jirto ayna rajaynayso inay jannada wada degaan waxay ku bilaabanay naftaydu naftay rabtiyo naruurada aadmigow nitaaqiya kelinimaad aniga iga naawishood nuxuustiyo tamasho gaara dartay ugu nugul ahayd yacni dhibaato iyo kelinimo iyo wax walboo idhibaya baad ahayd mid aniga ii diidaya jacaylkiiyo nolol wadaagu naflaha hididaale iyo rajuu ku nagaadiya ana niyad wanaaggii nafsadayda kama jirin axdigaynu dhiganiyo nidarkii ma jebin oo nafsi gaama galabsane waxay leedahay ballantii iyo axdigii aanu dhigannay dee kollay aniga adduunka ka tegaye dee anigu nafsi kaama gelin oo kaamaan doonan dee inaan anigu kaa tegee waa qadar ilaahay ii qoray noloshii adduunye iyo maalmaha nagaaba nusqaantoodii timiye naba tegay naftaydow maalmihii lay qoray baa dee nusqaantoodii timi oo de qof walba halkan joogaa wuu ka tegayaa adduunyada marka inankii maadaamaan anigu ku cidleeyey kaamaan de anugu galabsan markaa nafsi ee maalmaha nagaa baa dee nusqaantoodii timi naxariistii eebbiyo hantay nabadgeliyiyo nuur nastay oo xogtaadii niyaddaan ku quushaa markaa waxaa tihi ee ilaahay de naxariistiisii baan hantay neecaw udgooniyo xubbigii naq buu galay jannadii naciimiyo nimco aan gurayn buu nuugayaa maaragta inay tiri inantii dee jacaylkii naciimuu galay haddaba
caku wada jirkeennii naxashkii la saariyo kala nudul fogaantii kama nuuxsado waa nabar ku yaal niyadda iyo qalbiga maadaama aynu kala fogaanay ood adiguna ifka joogto ananuguna aakhiro joogo weliba aan dee jannadii joogo inantii way u bushaaraysay waxay tiri jannaan ku jiraa laakiin caku wada jirkeennii waa wehel ahaanteennii naxashkii la saariyo kala nudul fogaantii kama nuuxsado waa nabar ku yaal niyadda iyo qalbiga maadaama aynu kala dheer nahay oo aynaan wada joogin aad bay dee misnax taas lafteeda dhibaato inantu waa dhibaato ay inantu sheeganay kashiya laabtan kuu nugul nuxur iyo kalkacalkii nashaadkaagii weyde xillimaad u soo noqon naftan baahanee noolaha arkay yacni waxay leedahay xillimaad ii imanaysaa intaad adduunyada ka timaadid oo dee adduunyada laguma soo laabto soo maaha aakhiro iyadaa la tagaa ee dee adduunyada qofkii jooga hadduu ka tago dib uguma soo noqon karo adduunyada xillimaad u soo noqon naftan baahanee noolaha arkayn maba arkaysaba wax kaleba ma arkayso nooli kulantaydaadii nafsadaa ku noolee nalku wuu shidmaayaa nuurkii adduunkow nolol baa dambaysee joogtee naqtiin iyo ducadiiyo salaadaha waxay tidhi wax walba way hagaagi doonaan ee nolol baa aakhiro joogta dadku ishelayaan la farxayo ee ducadiiyo salaadaha naqtiin samay oo dee ilaahay ha caasin bay leedahay waa dardaaran ay inantii siinayso inankii arradaad qabtiyo nudubadan tarmee waaxyaha nab yidhi waynu nabadgelyeyn nudubadan yacni waxaa yeeye waxyaabahan dee kula ku soo wajahayee waxyahaagii jajaranaya ee kuu diiday dee hurdadii waa tuinanku soo sheegaye waxaani way maalin bayna daynayaan webiyada niciimiyo neecawda taallaan ku nagaadi doonaa naxariistii eebbiyo raalli noqoshadiisaa nacabkeenna gubiye nuuxnuusigoodiyo jaraynaa qishtoodee yacni dadkan ku dhibaya ee kugu diganaya ee ku farxaya jabkeenna iyo inaynu isweynay naxariistii eebbe markay arkaan innagoo hantay oo jannada naciimo wada tagnay dee dadkaas aakhiro nin guuliyo hantay nabad samaan oo naar laga xijaabaa naxliyada ma tiriyee nolol wacan ku noolow maadaamaan de anugu jannadii ku jiro dhibaatooyinkii iyo waxyaabihii hore ma tirinayee nabad wacan ku noolow baynantii intaa ugu soo gabageysa